sida daawada muuqaalkaba ka soo aragtay waa Hodan Online iyo xaajigeeda oo arooskooda mar dhow uu dhacay iyo romantiga ay ku dhex sameeyeen xafladda arooskooda iyo shumiska ay isdhunkadeen oo romantic inaba caadi aan noqonin oo baraha bulshada aad u qabsaday. lamaanihii ugu horeeyay oo arooskooda shumis ku sameeyay oo romantic ah si aan kula wadaaga fadlan nagu soo biro asxaabteena ka mid noqo gacanta Allah ku barakay channelka subscribe dheh oo gambaleelka u furo muuqaalkana like la wixii fikir aad ka qabtidna qaybta commentiga noo wadaag. qofta la leeyahay Hodan Online iyo xaajigeeda cusub oo mar dhow arooskooda uu qabsamay arooskooda oo dhacdo la yaab badan ay ku dhex sameeyeen sida xafladda arooskooda loo dhex joogay oo dadka idil ay u dhex joogeen ay hal mar Hodan Online xaajigeeda dhunkatay. dhunkashadaasi oo baraha bulshada aad ay u qabsatay iyo baraha bulshada hadalhayn ay ka dhalisay maadaama dadkii ugu horeeyay ay noqdeen labadii lamaane ugu horeeyay Soomaaliyeed oo isku dhex dhunkada arooskooda shumis toos ah afkana iskugu qabta oo jacayl lamaanahaasi uu ka dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo wixii ayagaba cadow ku ah ay u cadeynayaan maadaama arooskooda sida loo duubayay iyo aroos aad u qurux badan in ay qabsadeen iyo sagootinta la sagootinayay iyo xafladda arooskooda oo aad ay u weyneed dad badan ay ka soo qayb galeen sida arooskooda ay ugu dheelayeen ugu heysayeen hal mar oo qura oo kaliya ay Hodan Online xaajigeeda ay dhunkatay. dhunkashadaas oo dadka arooska oo idil oo joogo ay hal mar dadka idil ay wada hooriyeen ay aadna u wada kaceen ay fadhiga ka wada kaceen ay hooriyeen. Hodan Online oo dhankeedan aad u xishootay iyo arooskooda oo aroos aad u la yaab badan baraha bulshada muuqaalkaasi oo la duubay oo barta TikTok la soo dhigay Hodan Online uu aad u baraha bulshada hadalhayn ugu badan ugu dhaliyay dad badanna ay ka soo hadleen dad aad u xooganna ay ka bixiyeen dadka qaarna ay ka dhaheen Hodan Online xaajigeeda aad ayay u jeceshahay jacaylka ayaa ka keenay in ay dhunkato iyo jacaylka aadka u weyn ee u qabto ayay dadka idil ay u cadeynaysay xaajigeedana in ay jeceshahay jacaylka kala dhaxeeyana ay dadka idil u muujinaysay. muuqaalkeeda ayaa baraha bulshada aad u qabsaday hadalheemo badanna wuu ka dhaliyay. daawada wixii fikir aad ka qabtidna qaybta commentiga noola wadaag muuqaalkeeda ayaan kula wadaagi doonaa. soo dhawow daawade.